Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda waan idin salaamay adduunka mar walbaad ka joogtaan kusoo dhawaada channelkeena Muna Soma walaashina Muna haddii walaalaad nagu cusub tahay naga hilmaamin subscribe like share iyo comment haddii hore aad u joogtane share iyo like iyo comment naga hilmaamin dhiirigelin ayay inoo tahay waxaa aad iyo aad leesoo weydiiyey oo laga soo dalbaday inaan idinla wadaago video cuntooyinka aan cuno marka maanta videogaas ayaan jeclaystay in aan sameeyo subaxii ilaa habeenkii markaasaad arkaysiin marno ayaan soo kacay musqusha ayaan ku jiray waan soo hagaajinay waan soo toosinayay haddana qolkeyga ayaan imaaday morning routinkeyga caadigii ayaan sameysanayaa oo waxyaabihii wejigii markaas oo kale aan marsanayay kariimamkii dhan ayaan rabaa inaan soo sameysto insha Allah caruurta intaysan soo kacin ka hor waa muhiim adiga inaad waqti aad isgelisid nus saac 20 daqiiqo ka hor inta waqti adiga ay kugu qaadanayso adigoo isdiyaarisay oo fresh ah caruurta markaas inaad qaabishid ayaa wanaagsan markaasna energy ayaa kasii qaadaysaa stress iyo orodna ma gelaysid laakiin adiga caruurtii hal mar haddii aad soo wada kacdaan musqulihina jaam ayay noqonayaan qayli iyo buuq in subaxii lagu bilaabana waa laga fiican yahay marka subaxii waqtigaada qaado 10 daqiiqo ba ilaaha ka dhigay caruurta inaad adiga kasoo hormartid oo adigii ku isdiyaarisid kadib ayaga aad ku xijisid aniga runtii saas ayaan jeclahay nafis ayaan ku dareemaa stress iyo buuq la'aanna way tahay marka hadda waa kana aniga markaan isdiyaariyo caruurta ayaan soo kicinayaa kadib ayaan aadayaa insha Allah xagga jikada quraacdeena ayaan ka bilaabeynaa quraac yar ayaa inoo boobsiinayaa oo aan iyo caruurtii aan cuno inta iyagana maxay xanaano aysan aadin anina cashiro aysan ii bilaamanin marka hadda waa kan jikadii ayaan imaaday waxaan soo diyaarsaday boorashka waan soo shiiday saad arkaysaan daqiiq camal ayuu u egyahay boorashkan waxaa waaye kan madow iyo kan cad ayaan isku soo shiiday dhaladaas ayaan ku shubanayaa wax yar macsarana waan ku darsanayaa cusbo yarna waan ku darayaa laakiin sokor kuma darayo caruurtana malmalaad ayaan ku siinayaa anigana maxay ahayd waxyaabo kale ayaan ku cunayaa insha Allah ila socda subaxii aad iyo aad ayay muhiim u tahay ilmaha in la siiyo quraac nafaqo leh borotiin fiican leh sidaas darteeda mashaarida anaga aad iyo aad ayaan u jecelnahay caruurtana ayagoo yar ayaan baray way ka helaan oo maba dhibsadaan nafaqo fiicanna way u tahay borotiinna way u leedahay maasha Allah lafahana way u dhisaysaa fiibar badanna wuu leeyahay oo caloosha way u fiican tahay si ilmaha dhow xilliga qadada markii la gaaro si cunto fiican ay xanaanada ugu cunaan cunto culus ma ahan boorashka aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay boorashkeena markaan diyaarsano boorashkii waad kana waa inoo diyaar baaquliyada ayaan kusoo shubnay waa qabow saad arkaysaan caruurta saan idin sheegay waxaan ku siiyaa malmalaado anigana waxaan ku cunayaa wax yar oo malab ah iyo waxaan kaloo isticmaalaa looskaasi shiidan aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay borotiin fiican waaye energyna wuu ku siinayaa subaxii taas ayaanan rabaa waxaa kaloo jeclaystay inaan idinla wadaago walaalaheyga fitamiinkan inaad caruurta uga faa'iidaysaan insha Allah caruurta ayaa loogu talagalay wixii 4 sano ka weyn waa fitamiino aad iyo aad u wanaagsan ilmaha cuntadooda ay xun tahay ilmaha nafaqo daro hayso aad iyo aad ayay u caawinaysaa marka farmashiyaha ayaa lagu gadaa waad kasoo gadan kartaan mid oo weyn ayaa jirto oo dadka waaweyn ay qaadan karaan kana waad arkaysaan kids ayaa ku qoran caruurta 4 sano jirta iyo wixii ka weyn ayaa loogu talagalay fitamiinadeena ayaa qaadanaynaa kadibna caruurtii ayaa waxaan geynaa insha Allah xanaanada kadib ayaa aniga maalinteyda ii bilaabanaysaa hadda marka caruurtii markaan iska geeyey guriga ayaan kusoo laabtay cashir iyo waxaas ayaa ii yaalo oo kombiyuutarka ayaa laga rabaa inaan fadhiisto sidaas darteed waxaan soo diyaarsanayaa wax yaro adii casriye yar ilaa duhurkii halkaas ayaan fadhinayaa hadda saacad waxaa waaye 2 saac mal waaye marka 4 saac ayaa halkaasi fadhinayaa ma rabo inaan markaa soo dhaqdhaqaaqo cashirka ayaan rabaa xoog inaan iska saaro sidaas darteeda casriye yar ayaan hadda sii diyaarsanayaa insha Allah casriyadeedana waa tanaa waxay ka kooban tahay waxaa waaye tufaaxan soo jarjaray sabiib yar iyo labadan loos oo kala duwan looska maasha Allah aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay energy ayaa ka helay borotiin fiican waaye maskaxdana way dhisaysaa biyahan dhaladan waxaa waaye 2 litir iyo bar waaye marka waxaan isku dayaa insha Allah subaxii hore dhan inaan cabo duhurkii wixii ka dambeeyana dhalo kale ayaan soo buuxsadaa marka sidaas ayaa maalintii waxaa ku qabtaa intii biyo lagugu talagalay haddana waa kana meeshii ayaan soo fadhiistay cashiro ayaa ii yaalo cashiradan ayaan kasii shaqeynayaa kadibna online classes ayaan leeyahay oo laga rabo in aan soo xaadiro insha Allah
Marka subixii sidan ayaa waqti ku qaataa badankood. Maalin walba halkan ayaa layga rabaa oo waxbarashadii online maadaama hadda ay tahay. Xafiiskaygana iska soo fadhiisanayaa. Waxaana fadhiyaa runtii ilaa laga gaarayo 6 saac qadada laga gaaraa. Kadib ayaa haddana waxaan leenahay 1 saac bareeg ah aan kusoo qadayno oo haddana wixii 7 saac ka bilaabmada cashirka ayaa lagu soo laabanaa. Haddana waxaan idinla wadaagi doonaa qado yar oo fudud oo macaan oo waqti badanna kaa qaadanaynin. Halkan waxaa waaye bariis had arkaysaan waa soo karkarinayaa. Jilaax waa bisleynayaa wax yar inay u dhiman tahay bis ayaan rabaa. Digirtaasna waan isticmaala labadaasi digir. Halkan waxaan ku dubayaa waxaa waaye 3 malaay ayaan ku dubayaa. Cuntadaana soo tijaabi insha Allah. Caruurta aad iyo aad ayay u jecel yihiin. Nafaqo fiicanna way leedahay. Cunto aad iyo aad u macaan waa insha Allah. Malaayga waa kana waa soo dubaa. Waxaa kaloo bariiskan inta ayuu igu sii karaa. Markuu igu sii karo waa soo miiraa. Markaas soo miirana kadib ovenka ayaa rabaa inaan ku kariyo aan ku huuriyo. Waqti badan igama qaadato cuntadaani saacad gudaheeda. Saacad xitaa ma ahan waxaan ku kariyaa adiga 20 daqiiqo nus saac. 20 ilaa nus saac gudaheeda ayaa ku karin kartaa. Aad iyo aad ayay u fududahay. Halkaan karooto ayaan ku jarjaranayaa. Karootadii kale oo barafka ayaa iga dhamaatay freezer-ka. Marka karooto kale caadi ayaa guriga ii taala aniga ayaa diyaarsanaya. Wixii qudaar ilmahada ay cunayiin ayaad ku samaysan kartaa. Aad iyo aad ayay u macyiin qaasatan ilmaha malaayga jecleen oo kale ama qudaarta jecleen. Bariiskani haddaad u samayseen way ka heli doonaan. Malaayga waa kana markaan soo dubay waa soo jarjaray. Markaan soo jarjaray saxankayga ayaan soo qaatay. Saliid fiican ayaa saxan ku shubaysaa si bariiska qaleel uusan kaaga noqonin. Bariiskan maasha Allah wuxuu kusoo bixi doonaa furfur oo macaan. Saxanka markaan ku wada shubo qudaartii ayaan ku darayaa. Karootadii ayaan ku darayaa. Qudaartii kaleeto freezer ahayd marka bariiska ayaaba kula kariyay. Marka karootadii waa tana wax yar saliid kale ayaan dusha ugu darayaa. Xawaajiyadeeda ayaan soo qaadanayaa oo aan dusha aan ugu darayaa wixii xawaajiya isticmaashid ayaad ku darsan kartaa. Hadda waa kana malaayga ayaa korka ka saaraysaa. Waa daboole waa huurinaysaa. Adi 10 daqiiqo ayaa waxaa gelinaysaa ovenka ayaa gelinaysaa. Koob haafkiisa oo biyana waa ku shubaysaa. Intaas inuu iskula kara ayaa la rabaa. Ovenka ayaad gashanaysaa maasha Allah. Waa kana qadada sidan ayay kusoo baxday. Nafaqadeeda dhammaystiran. Karootada inaba caadi ma ahan. Karootada markii la kariyo ayay nafaqa fiican ay leedahay. Marka hadda waa kana bariiska markii saan loogu kariyo maba la dareemayo. Karootada dhan yacni way dilmatay. Saas ayaan jeclahay in aan bariiska runtii aan u karsado. Digaag ayaad ku samaysan kartaa. Malaay, hilib wax yarta ayaad ku samaysan kartaa. Ilmahana ma dareemayaan. Waa ka sii yareyn kartaa xitaa haddii aad rabtid malaayga sidaan laakiin anaga sidaan ayaan ku cunnaa. Xilligii casriyadii ayaa la gaaray caruurta markay ka yimaadaan xanaanada. Hadda waa kana fruuta yar iyo waxaa noo soo diyaariyey rootigaas adag oo cheese yar aan soo mariyey. Rootigaasi aad iyo aad ayuu u fiican yahay. Fiber badan ayuu leeyahay. Caloosha ayuu u fiican yahay. Fitamiinad badan ayuu leeyahay. Insha Allah ka faa'iideysta asxaabta. Marka hadda waqtigeena ciyaarta ayaa la gaaray markaan casriyeysano. Kadibna jikadeena ayaan galeynaa casho yar ayaan kasoo tuurinaa insha Allah. Nala socda asxaabta. Hadda waxaa la gaaray xilligii cashada. Waxaan soo diyaarsaday wax yar oo fuul yar iyo salad iyo waxaan soo diyaarsaday jab yar oo ceesh yar ah. Koobkayga shaahiga. Intaas ayaa caawa casho ahaan aan u kariyey. Waan baxay markaan banaanka ayaan jiray. Gadaal ayaan ka imaaday. That's why waxaan halkaan usoo fadhiistaa aan u cunteynayo. Inta kaleeto ilmaha ayaan la cunteeyaa oo waqti la qaataa. Miiska qadada ayaan wada fadhiisanaa waana wada sheekaysanaa. Laakiin maanta maadaama hadda ay jiifaan waa aniga aan baxay sidaas darteed ayaan halkaan usoo fadhiistay. Cuntadeedana waa kana cunto yar oo fudud oo maasha Allah easy ah. Oo aad iyo aad u macaan. Waa kana cashadeena saan ayay kusoo baxday. Insha Allah walaalayaal inaad ka heshaan ayaan rajeynayaa videogan. Waxyaabaha aad jeceshiin inaan idinla wadaagan insha Allah hoos commentiga waad iigu soo qori kartaan. Aad iyo aad ayaan idinkaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan aad iila socotaan iyo commentiyadiina quruxda badan. Jazakallah khair ayaan idin leeyahay dhammaan. Khayr ayaa idin dhaafay inta kale oo video aan ku kulmeyno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.